نبي الله موسى يا وحال يري وحو أركي إلهي الله سبحانه وتعالى وحير إلهي وحن كاربا رفيقيغا حق جنة كو الدنيا وان أركي إناد الدنيا دو برتو مركاسو إلهي وحير سبحانه وتعالى جليس كاغا جنة وحال هذا هبل وحونا جوغا ميل هبلا نبي موسى واتغي ماشي بو تغي نينكا هبل يرا هلا يتسو يري wuxuu yiri waxa la yiraahdaa ninkan hilibka gada hilib gadanaya markaasuu ninkii sidoo u weydiiyay asaguna ma yaqaan asna ma yaqaan laba isma yaqaaniin ninkii wuxuu u fakiray nabi Muuse wuxuu yiri waxaan ka codsanayaa ilaan hadda waa u jeedaa inaanu wax weyn aysan ka muuqan oo cibaadahay bal inuu xogtiisa soo ogaado rabay wuxuu yiri waxaan ka codsanayaa caaw nin waxaan ahay musaafir inaad marti qaado gurigaaga marti qaado waayahay buu yiri shaqada markaa dhameystaan israacayna gurigii buu ku marti qaaday meel buu fariistay bal wuxuu fiirinayaa sida ninkan dhaqankiisu yahay ninkii maamo shayb oo guriga joogta ayuu tirtirid iyo af u galin cunto iyo muxuu ahaa nadiifin ayuu ku bilaabay markuu martiqaadkii dhameystay buu wuxuu yiri maamadii buu dhageystay maamadii waxay ugu ducaynaysaa kullama uu wax siiyo bay waxay leedahay nabi Muuse rafiiqiisa jannada Allah ka dhigo markaasuu maamadan dhiyay yiri waa hooyaday way meeshii wuxuu ogaaday marka ninkan waxa uu ku mutaystay inaysan wax kala ahayn ducada hooyada inay tahay halkaas uu ka soo laabtay waxa kala qiso kale muxuu ahaa muntashira ah laga yaabo kulligiin inaad wada garanaysaan Umar ibn al-Khattab xilligii uu khilaafadiisa uu islaamka uu ahaa amiirul muuminiin ya waxa dhaqankiisa ahayd inuu magaalada intuu ku foofo hameenkii saqdhexe soo wareego bal wax cabanayo wax dhibaataysan wax danale guriga wuxuu ka maqlay gabar iyo hooyadeed xoogaa kala durugsan oo hadal isku tanaagonayo gabadhu hooyadu leedahay heblaay caanaha biyo ku dar suuqa loo dhigayo xoogaa lagu badiye markaas gabadhina tiri ninkii naadinayay hooyo oo amiirul muuminiinka amarkiisa naadinayay wuxuu naadiyay yaan caanaha biyo lagu darin markaas ay tiri amiirka iyo naadiyihiisuba ku maqli mayaane caanaha biyo ku daray tiri kulama joogaan gabadhii waxay ilaahay ku aadiyo waxay tiri haddaan amiirkii iyo naadiyihiisu maqlayn aniga igama suurtoodo inaan markay maqlayaanna adeeco markay iga maqan yihiin caasiyo Umar intaas markuu maqlay waa iska tagay wiilashiisii wuxuu u bandhigay wuxuu yiri bal ha la soo baaro qoyskaas hal gabar baa u joogta cida gabadha magacaas ma la yiraahdaa magacaas la magaci markii maqlayay wiilkiisa Caasim ahaa ayuu u doonay gabadhii ila dunta wanaagsan waa la doortaa waa la raadsadaa wayaan dambe inkastoo dhaldhalaalka kaliya la iska la cuskade aan lafaha marka aan si fiican loo qadarin marka gabadhii waxay dhashay Caasim waxay u dhashay gabar Layla la yiraahdo bintu Caasim gabadhaasina waxay dhashay khamisul khulafa Umar bin Abdul Aziz mujaddidkii koowaad oo dunida islaamka qoys marka barakeysan wax barakeysan bay dhalaan Sheekh Yuusuf Sheekh Ibrahim ajalad waxaan dhageystay wuxuu leeyahay sheekhanaga Cali Sare anoo la soconna yaan waxaan arkay wuxuu yiri sheekhu taako ayuu wuxuu dadka ugu tarbiyeen jiray in shariicada loo ilaaliyo shibran bi shibrin meelna in laga khilaafin
حتى قصيدتي way ka mid ahayd حتى الكراهة نزيها بل رأى ذات الأيام رجلا يأتي المكروه فعاطاه بفعله كراهة تنزيهية كراهة التنزيه وما أقولين تلاميذ وحي مالما كان لا سعنا أيا وحي وحسب بدي إني مدك تاين بدح هيد ما أغاني دنعنا وحكسب بدي السبحان يبهاش ليلا يرتها ومصير وأن هذا السيدة مسكو كلا أصلا بدنين أما ولا يراوح معنا مركز أوشك كله بوديبي مركز سعيري إن صاغبت أكادي شرع أحكام الخمسة ملك وافجي دل كذا بالك مواجبة مكراهية حرام با السنة أحكام الخمسة ملك وافجي راكو مركز ورا أنت هذا كل دقائقين وحوها مركز علمي جاي عملك مركز عن بيشري ما أقان وحي تاي كراهية حرام السنة هو هذا ما أرجع الدشة هندا اللي يرى وقته مركز يري هذا لو شيء هيا بهلا غرغورتا هدو خيري تاك كدير يحيى وسنة دلكيسي marka wuxuu ahaa axad sidaas shariicada islaamka u dabaqay abi xaniifa hooyadii maxay ahayd aabihiis thaabit ba isagoo socda ee baahan wuxuu arkay tog biyo ku socdaan tufaaxa oo biyahaasi wadaan biyuhu sidaan uu la soo baxay hal mar buu qaniinay xabad tufaaxa markuu qaniinay hal mar uu la qayb wuxuu isdareemay inaanu ahayn maalu qeyr inuu yahay biyuhu meesha ka yimaadeen gadaal ugu laabtay beer bay soo dhaxmareen tufaaxa nuuciisaan oo kale uu ka baxayo tufaaxa duwan yahay ninkii buu beerta joogay maaligiisa ah tufaaxan adi miyaa lahaa nuucigi waa beerteeda way ii cafi intaanan ka cunay intaan iga qabo biyaha soo wadan kala haray markaasuu yiri ma kuma cafinayo beerta ina inta soo muddo iga shaqaysid maahane ku cafi maayo way habiir beertii uu kaga shaqeeyay markuu muddo beerta kaga shaqeynay hab uu lahaani cafi mudadii waa dhamaatay wala ma intaas ku dar ninkaanina waa milcsaday ninkaan cibaadadiisa iyo istiqaamadiisa iyo waracnimadiisa ayuu aad uga helay ninka beer dankan uu baakleeyay ninkaana waa ka cadahay wuxuu isleeyahay mar kaliya ilaahay ha hortagin adoo deyn lagu leeyahay markii dambe ayuu wuxuu yiri shardi baan wataa waxaan rabaa hal shardigaas hadaa ii fuliso waa ku cafinaya waa maxay shardiga waxaan rabaa yiri waxa ii joogta gabar adimala oo indhala oo dhagala gabadhaas aan kugu mehriyo waa in adiga aqbashaa guurkeeda markaas aan ku cafinayaa waxa indhala oo dhagala seeleeyay waxa inaad xaaskeeda inaad xaaskaaga inaad fahamsiin kartaa xataa wax suuragal ah maaha in wax la fahamsiiyo markaasuu wuxuu yiri sayasha waa ka jimbaday waa la qiwaayay haddana wuxuu yiri mid aakhira kaaga daran bal si aad ula tacaamushaba iska yeel markii uu ku nikaaxiyay ayuu wuxuu yiri guriga waqtigaas muxuu ahaa gabadhii lagu keenayaa ee halkaas joog gabadhii u soo diray waxa u soo gashay gabar ilaahay uu qurux u dhiibay oo taam ah aan iliyo of la'ayn oo ah de ajmalu shay'in fil aalam markaas way salaantay wuxuu yiri maxaa ahayd waxaan ahay xaaskaaga hebel soo matiidaa gabadhii uu muxuu ahaa la siiyay waa aniga ma jirto yiri waxaan la sheegin aniga waxa indhala adimala la sheegay oo dhagala marka aabahay waa runtiisa tiri oo xumaan waa ka adimala ahay waa ka indhala ahay waana ka dhagala ah
addimadeeda xumaan uguma socon indhahayga xumaan kuma fiirin dhagahayga xumaan kuma dhagaysan waxaasoo dhan ilaahay baa iga xifdiyey ninkii haabit ahaa iyo gabadhii halkay isku afgarteen qof la arko qofka kale wuxuu ka codsaday iyagoo la soo kala hormaray bal muxuu ahaa inta aanan kulmin qof la arka wuxuu yidhi laba ragco oo shukri ah salaad shukri inaan dukado yaan kaa codsanaya lala kala jeesta salaadii shukriga waxa ilaahay uu halkaa ku xambaaray abu xaniifa nucmaan bin thaabit idan markaa wax wanaagsan bay dhalaan sheekha markaa asalkiisa dayib ahaa uu ka soo jeedo tarbiyadooda wanaagsanaa waxaan leenahay markaa adduunyo waxaan joognaa dib jeedisay aakhiro soo qaabishay sida sayidina cali bn abi aalib uu yidhi alaa wa ina adunyaa qad taraxalat mudbira wa ina alaakhirata qad taraxalat muqbila walikulli waaxidin minhumaa banuun fakunuu min abnaa'i alaakhira walaa takunuu min abnaa'i addunya faina alyawma camalun walaa xisaab wagadan xisaabun walaa camal adduunya waa jeesatay waqtiga hadda aan joogno iyo waqtigii mashaa'ikhda kaliya haddaan isku fiirino bal iskaba dhaaf kii ka soo horreeyey oo saxaabadii taabiciintii iskaba dhaaf mashaa'ikhda aan xusayno waqtigoodii iyo waqtigan hadda aan joogno markaan isku fiirino qad taraxalad mudbira adduunya waa tagtay xishood waa tegey camal waa tegey ikhlaas waa tegey cilmi xataa naaficihi wuu tegey waxaan maraynaa xilligii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ba ahaa uu yidhi baaqin doona inta culamo baaba'aan khudaba kuwa khudbayahana ah oo mid la arka markuu khudbaynayo aad la yaabaysid laakiin culamo ma aha culamo waxaa uu qofku waa caamil yahay haddii caamilnimadii la waayo aan lagu camal falaynin afmishaarnima cilmiga laga rabaa kaliya iyo aftahanimo xilligaasaan hadda ku jirnaa horta uusiikum wa nafsiya bitaqwa allahi tacaala wa daacatihi ilaahay taqwadiisa inaan laasimno inaannu ka cabsanno yowma alqiyaama naarta imaanayso nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yu'taa bijahannama yowmaidin lahaa 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها waxaa lala imaanayaa iyadoo 70,000 oo hoggaan ku xiran tahay hoggaan kastana 70,000 oo malag ay jiidayaan ayaduna ay soo fakanayso maanta waa maalintii ilaahay ii ballan qaaday inuu i buuxiyo cawskaygii baan u jeetaa ay sii daayay ilaahay naarta cawskeeda nagama dhigo waxaa looga badbaadahayaa ilaahay taqwadiisa daaco ilaahay in lala yimaado ikhlaas fi lcamal itibaacu sunna ilaahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam uu noo soo diray oo afdalu khalqillaahi ah itibaaciisa in laga run sheego mashaa'ikhdanada waddadii xaqa ahayd ee ay raaceen inaan annaguna uga daysanno waddadaa wanaagsan inaan uga daysanno oo ay nuurka iyo karaamadii caawdhan sheegaya ka heleen bilaash kuma helin juhdi iyo dadaal bay u mareen ikhlaas bay u mareen cilmigooda ayay ka run sheegeen way ku camal faleen